halkani waa goob baadiye ah maanta halkan aanu qadada ku leenahay annaga iyo agaasime maxamed cabdi ibraahim iyo maxamuud gurigaan tegi doonaa lala socdo cadceed laakiin sida uma kulula cadceed ma jawigu dabeel badan ma jirto waa dhexdhexaad inkastoo cirka roob waqti hore ugu dambeysay in halkan uu ka dao bila ka hor bila ka hor هذاين قد واحد أدونك لو وجع السلام عليكم deegaanka la yiraahdo Migdigale oo ka tirsan gobolka Sanaag in muddo ayaan halkan dhagay ku maqli jiray wax badanna waan mari jiray anigoo gaari halkan ku mari jiray laakiin waa markii ugu horeysay dhinaca qarkan aan uga soo dago jawiga halkan waxay tahay mid aad u degan dabeel badan ma jirto oo dabeeshu waa dhexdhexaad cimilada cadceed xitaa saa uma kulula inkastoo xilligan waqtigan deegaankan roobka uu ku yar yahay ay ka mid tahay meelaha sida fiican uusan uga deyin laakiinse dhulka waa cagaar dadkuna waxa inta badan ay u kala hayaameen dhinaca magaalooyinka si ay halkaas ay nolol maalmeedkoodii iyo shaqooyinkoodii gaarka ay u aadaan iyadoo inta badan deegaankan uu yahay meel xoolo dhaqato ah aniga iyo saaxiibkay maxamed xasan dhalo halkan ayaan ku nimid boqosho gaaban iyo qado halkan lagu sameeyay iyo maxamed joker haya dhalo horta wuu mahad celinayaa saaxiibkay maxamuud oo halkan uga casuumay maanta maxamuud waxa xoogaa dhaqankii xitaa baadiyaha inuu isbedelayo oo aqalkii daardaar looga soo ekeysiyay aqal Soomaaligii oo dadka dirxmada ama inaan tuulo joogno oo kale dadka muuqaalka daawanaya daahiyadan iyo marka la arko sababta xalkan oo kale hadda kabad ama dermo waxba ka muuqan jiray moogta laakiin xoogaa waxa mudaa dugsiga iyo in la micisanayo in yani magaalo laakiin baadiyaanu joognaa ma daar guriga aan ku jiro insha Allah taala waan soo bixin karnaa sama